sidaynu hore idin kula wadaagna barnaamijkeennii subaxnimadii saakay in madasha mustaqbalku dhawaan warmurtiyeed soo saari doonaan warmurtiyeed ka soo baxay ayaa waxaa lagu sheegay in ay soo dhaweynayaan kana qaybgalayaan gogashii ay horey u codsadeen dowladuna ay dhigtay warka madasha mustaqbalka ka soo baxay ayaa waxaa lagu sheegay in madasha mustaqbalku ay ka qaybgali doonto kulanka ayaa muhiimadiisu waxa ay tahay in cabashada looga dhageysto madasha mustaqbalka yacni cabashada ay ka qabaan habdhaqanka dowladda iyo sidoo kale qaabka doorashada loo wajahayo oo dowladda Soomaaliya ay sheegtay in doorasho qof iyo cod qaban doonto sidoo kale madasha mustaqbalkuna ay leedahay doorasho aynu heshiis ka nahay waa inay dhacdo yacni marka cabashadooda ayaa looga dhageysanayaa ee arrintu ma aha in doorasho halka lagu jaangooynayo warmurteedka madasha mustaqbalka ayaa intaan soo dhaweynta gogasha loo gudagelin waxa hordhac looga dhigay dalkii inuu kala tagtagay iyo sidoo kale in dalkii god dheer ku dhacay xilli muddaxileedkan madaxweyne Xasan Sheekh iyo adigu in argagixis soo weerartay dalka inuu kala go'ay in siyaasad xumo jirto adigu dhaleecayn ka bacdi iyo sidoo kale niyad jabin shacab ay waxa ay sheegeen in gogasha soo dhaweynayaan ayagoo hadalka gol xaarka marka u muujinaya in shacabka dhibaataysan iyo xaaladaha dalku la kulmayo aawadood ay u tanaazulayaan gogashaasna ay ka qayb gali doonaan xogo kale ayaa waxa ay tilmaamayaan in ay suuqa si fiican u soo gelinayaan oo ay buunbuuninayaan wax weyn ka dhigayaan in Axmed Madoobe iyo Deni muddo ka bacdi Muqdisho ku soo laabtaan waxa ay leeyihiin tanaasulaad ay muujiyeen weeye waxa ay leeyihiin haddii shirkaas ama gogashaas lagu heshii waayana filla Soomaaliya ayaa eedda boqolkiiba boqol iska leh ay soo suuq geynayaan waxayna wax weyn ka dhigaan imaashaha madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Madoobe oo muddo ka cagajidayay inay kulamadaas yimaadaan laakiin hadda waxa ay leeyihiin waan keenay waa waqti baa ku bixinay waana ugu dambeysna way tanaazuleen shacabka Soomaaliyeed ay u tanaazuleen dowladuna haday fursadaas ka faa'iideysan weyso iyada dayacday ay leeyihiin laakiin dadka qaar oo arinta ka soo horjeedaya waxay u dhigayaan in laba nin oo horay iyagu ummadii Soomaaliyeed gogashoodii iyo filla Soomaaliya iyo caasimadii Soomaaliya ka xanaaqay ahaayeen haddana iyagu iskood u soo laabteen shirkan ayaa waxa la leeyahay go'aanka dowladdu ka damacsanta waxay tahay madasha mustaqbalka inay uga dhageysato cabashada ay qabaan laakiin aysan ahayn arrimo masiiri doorasho looga hadlayo sababtuna waxay cadeynaysaa la leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu doorashadii si gooniyo uga shaqeynayo oo doorasho qof iyo cod xilligan uu wado maamul goboleedyada laga qaban rabo gobolka Banaadir tiisa ay socoto dastuurka dhameystirkiisa shantii cutub u dambeysana la rabo in la soo gabagabeeyo marka waxay ka dhigan tahay madaxweyne Xasan Sheekh inuu shaqadiisii wato nimankan cabashadooda dhageysan doono sidoo kale waxa shirka cadeynaya inuusan noqon doonin ama kulankaasi noqon doonin mid doorasho looga doodayo ama doorasho masiirkeeda lagu go'aaminayo waxa cadeynaya la leeyahay in madaxweynayaashii maamul goboleedyada aysan fadhin imaanaynin sida madaxweyne Axmed Cabdi Karim Qorqor madaxweynaha Galmudug madaxweynaha Hirshabelle Gudlaawe madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen ma imaanayaan iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir sidoo kale waxa gogashaas ka maqan xubno badan oo mucaaradka kamid ah oo hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xisbiyada siyaasadeed ee dhawaan ka tartamay gobolka Banaadir iyo xisbiyo kale oo badan oo hadda ku soo biiray waxa la leeyahay gebi ahaan kama qayb galayaan marka ma noqonayo shir looga tashanayo doorashada laakiin wuxuu noqonayaa shir filla Soomaaliya ay kula hadlayso xubno codsaday in filla Soomaaliya la hadasho xubnahaas oo mucaaradka qayb kamid ah laakiin iyagu mucaaradka oo dhan go'aankooda uma goy karaan waxa la leeyahay ismaan dhaaf ayaa jira oo madasha mustaqbalku waxay rataaba go'aanada iyadoo wadata filla Soomaaliya inay ku dirqiso qaadato sidoo kalena ay xubnaha kale oo mucaaradka iyagu go'aamiyaan ay u dan leeyihiin laakiin taas waxa la leeyahay ma suuragelayso dowladuna taas uma diyaarsanaba waxa kale oo jiray xubno iyaga kamid ah oo horay dowladda heshiis oo la galay qodobo qaar dowladda uga tanaasushay dowladana la heshiiyay xilligaana kamid ah doorashada dowladda wado kuwa waafaqsana haddaba su'aasha la isweydiinayo waxay tahay kulankaasi heshiis ma dhici doona hadduu ka dhici waayana yaa mas'uuliyadda qaadanaya iyase u daran tahay waa marka koobaad waxa la leeyahay horta qodobo culus la imaan doona qodobo aad iyo aad u kala fog madasha mucaaradku waxa ugu badan ay wataan waa dastuurkii 2012 faroole sidoo kale waxa ay wataan waxa kamid ah doorasho dadban oo qaar kamid ah haddadan waxay qudareynayaan in loo fasaxo inay sanatarada Soomaaliya soo xulaan dhanka kale filla Soomaaliya waxay rabtaa doorasho qof iyo cod inay qabato baarlamaankana shacabku soo doorto golaha deegaanka doorashadiisana hore u bilowday inay waday rabtaa marka waxa la leeyahay dastuurkiina waxay rabtaa inay filla Soomaaliya soo gabagabeyso marka qodobada la wada wato aad loo kala fogay mid walba cagaf buuxa oo caqabadaha wata laakiin markii la isu yimaado laba mid bay noqon kartaa in la isu tanaasulo in la isu tanaasuli waayo haddii ay timaado in la isu tanaasuli waayo oo ay madasha mustaqbalku ay go'aanadooda ku adkaystaan waxa ay ku laaban doonaan oo fursad u heli doonaan labada maamul goboleed oo
garowe iyo sidoo kale Kismaayo inay halka doorashooyin ku qabtaan waliba dani waxa la leeyahay xilligan way ku adagtay inuu boosaaso ku qabto doorasho isagoo waliba doonaya inuu halka ku soo doorto xubnihii laga soo dooran lahaa laascaanood ee maamulka waqooyi bari marka waxa la leeyahay caqabado isugu yihiin dani wuxuu rabaa inuu boosaaso ku soo doorto xubnihii maamulka waqooyi bari ku matali lahaa dowladda dhexe waqooyi barina waxay rabtaa inay doorasho gole deegaan qabato doorasho baarlamaanna qabato baarlamaankaas dadku soo doortaan marka waxa la leeyahay aad baa arrintaas aad ugu kala aragti duwan yahay marka dani iyo Axmed Madoobe waxa ay doonayaan inay iyagu baarlamaankooda haddaba soo dhistaan iyo filla Soomaaliya isla xilligaas wada dhameystirka dastuurka ayaa isku soo aadaya marka uma badnaa la leeyahay boqolkiiba in lagu heshiyo laakiin filla Soomaaliya waxay ka faa'iidi doontaa in wada hadalkii laga dalbaday ay aqbashay ay ka faa'iidi doonto iyo sidoo kale inay dhageysatay cabashooyinkooda wixii cabashooyinkooda macquulan ay qaadan doonto wixii kalena ay halka uga dhaqaaqi doonto ay u badan iyaguna waxay rabaan totalba in loo qaato waxa ay wataan madasha samata bixinta ee fadhigoodu yahay jasiiro iyaga waxa la leeyahay wax talaaba oo gooniyo qaadi karaan male xasan sheekh maxamuud iyo dawladdiisana awood kuma muuqooni karaan xilligan la joogo laakiin kaliya waxyaabaha ugu badan ay sameey karaan waa banaanbaxyo yaryar iyo sidoo kale cambaarayn laakiin Axmed Madoobe iyo Dani inay xildhibaano soo dhistaan ayaa ka go'an balay marmarsiyo ayayna u raadinayaan gogashan ka bacd balse waxa la isweydiinayaa imaasha Axmed Madoobe ee magaalada Muqdisho maxay ka dhigan tahay iyadoo wali waarankii aan laga laaban xogaa aanu helinayo waxay sheegayaan in gudiyada labada dhinac ee arrimahaas farsamooyinka ka sii shaqeyn doonaan ayaa la sheegayaa walow aan la ogeyn ra'iisul wasaare Xamse dhawaan sheegay inuusan madaxweyne u aqoonin Axmed Madoobe warqadii casuumaadii uu soo dirana aqbalay qaabka uu ku soo dhaweyn doono iyo shakhsiyadda uu kula kulmi doono wuxuu noqon doonaa shakhsi Soomaaliyeed oo cabasho qaba oo cabashada laga dhageystay mas wuxuu noqon doonaa madaxweyne maamul goboleed oo masiirka ummadaas lagala hadlo ayuu noqon doonaa war-saxaafadeedka mucaaradka ayaa wuxuu qornaa sida tan shirweynihii ka dhacay magaalada Kismaayo 18 ilaa 20 Diseembar 2025 wuxuu ugu baaqay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in uu muddo bil gudaheed ah oo ku eg 20 Janaayo 2026 uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu isugu yeero shir looga arlinsanayo sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho heshiis lagu yahay ee hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya waxa bedelkeeda warqad ka soo baxday xukuumadda federaalka Soomaaliya 19 Janaayo 2026 oo lagu baahiyay in golaha mustaqbalka Soomaaliyeed uu ka soo qayb galo gogol wada hadal oo ka dhacaysa magaalada Muqdisho 1 Febraayo 2026 xaaladaha adag ee dalka Soomaaliya ee soo wajahaya sida midnimada dhuleed ee qaranka weerarada argagixisada ee dalka guud ahaan abaaraha ka jira xaaladda dhaqaale xumo iyo khilaafyada siyaasadeed iyo kuwa dastuuriga ah ee hareeyay dawlad dhiska dalka waxay ku soo beegmaysaa xilli ay 3 bilood oo kaliya ka harsan tahay muddo xileedka sharciga ah ee hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya ayna muddo ka hor meesha ka baxday sharciyadii qaar kamid ah hay'adaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya taas oo Soomaaliya ka dhigaysa inay joogto isgoys halis ah oo u baahan go'aan qaadasho loo dhan yahay oo ku dhisan mas'uuliyad bisayl siyaasadeed iyo aragti fog golaha mustaqbalka Soomaaliyeed wuxuu u arkaa dalka Soomaaliyeed inuu marayo marxalad xasaasi ah oo ay halis ku jirto dawladnimada wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyada oo ay khilaafyada siyaasadeed iyo kuwa dastuuriga ah ee hadda jira ay sii wiiqayaan midnimada dhuleed iyo midda bulsho ayna fursad u noqonayso kooxaha argagixisada ah iyo cidii kale oo dano guracan kale ee Soomaaliya ku waxyeeleyn karaan amniga iyo jiritaanka dawladnimada curdanka ah ee dalka haddaba golaha mustaqbalka Soomaaliyeed isagoo ka duulaya xaaladda kor ku xusan tixgelinaysa iyo caqabadaha baaxadda leh ee dalkeena hor yaala wuxuu wada tashi dheer kadib go'aansaday in golahu aqbalo gogasha ay digtay dawladda federaalka Soomaaliya si looga hortago firaaq dastuuri ah loona helo xal loo dhan yahay oo badbaadinaya dawladnimada iyo midnimada dalka golahu wuxuu si cad u adkeynaya in ay lagama maarmaan tahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qaado tallaabooyin gogol xaar oo noqonaya in shirku dhaco jawi xasilooni iyo niyad sami wada hadaladuna ay noqdaan kuwa miro dhal ah gaar ahaan
in uu gebi ahaanba joojiyo wax ka bedelka dastuurka in ajendayaasha laga wada hadlayo ay yihiin kuwa mudnaanta koowaad u leh xaaladda hadda ka jirta dalka amniga gaar ahaan la dagaalanka kooxaha argagixisada in heshiis loo dhan yahay laga gaaro hanaan doorasho ay ku dhacdo doorashada hay'adaha dowladda federaalka xaaladda midnimada iyo wadajirka dalka xaaladda abaaraha ka jira guud ahaan dalka guddiga farsamada golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ee uu hogaaminayo xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji Cabdullaahi Carab ayaa golaha ugu xil saaran wixii diyaar garow farsamo ah ayay dheheen warkooda ku dheheen haddaba adiga suuragal ma kula taaragtidaada in kulankaasi heshiis lagu gaaro mucaaradka iyo filla Soomaaliya ay ka heshiyaan doorashada qaabka ay u dhacayso aragtidooda muhiim xagga seefaladan ugu reeb. Wassalaamu calaykum.